السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa Isniin taariikhduna waa 8 bisha Juun sanadka 2026 barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe dagaalka u dhaxeeya Iran iyo Israa'iil halkee buu marayaa haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayno waxaa ka mid ah Iran oo faahfaahin ka bixisay sida uu dagaalka u dhacay iyo hadda xaaladdu halka ay marayso Israa'iil oo iyaduna ka warbixisay weeraradii dhacay iyo sida ay wax yihiin Mareykanka doorka uu ku lahaa dagaalkaas inuu ka qayb galay iyo in kale xaaladdu se hadda halkay joogtaa dagaalku ma socdaa mise wuu hakaday waxaa sidoo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa falcelinta ka timid dowladaha waaweyn ee caalamka ee ku saabsan dagaalkii dhacay haddaba xaalku waa sidee halkee labada dhinac ay iska duqeeyeen xuutigu hawshiisu halkee maraysaa dhammaan wararkii ugu dambeeyay ay warbaahintu ka qoreen sheekadan ayaynu barnaamijkan ku soo gudbin doonaa inta aan ku jirnana wixii warara ee soo kordha waan idinla socodsiinaya kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa Isniin taariikhduna waa 8 bisha 6 2026 wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkan xaaladda dagaalkii dhacay ayaynu gabi ahaan barnaamijka ku faahfaahinaynaa haddaba marka hore waxaynu ka hormaraynaa Iran waxaynu u kala saari doonaa wararka Iran iyo wararka Israa'iil wararka Mareykanka iyo wararka falcelinta caalamka iyo xaalka hadda aan idinla hadlayo meesha uu taagan yahay sidaasaan barnaamijka u kala habayn doonaa haddaba marka hore waxaynu ka hormaraynaa warbixinada dhanka Iran ka yimid haddaba waxaa war soo saaray goordhaweyd xafiiska la yiraahdo Khatimul Anbiya ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran hoostaga waxa uu sheegay inay Iran bartilmaameedsatay saldhigyo iyo goobo xasaasi ah oo Israa'iil gudaheeda ku yaala wuxuuna sheegay cadawga inay dusha u saariyeen khasaaro aad u weyn oo aanu muddooyinkan ka soo kaban karin afayeenka xafiiska la yiraahdo maqar Khatimul Anbiya ayaa wuxuu sheegay in khasaaro xoog leh ay u geysteen dagaalkii dhex maray saacadihii la soo dhaafay Iran iyo Israa'iil waaye qaybtaasu marka Iran waxay leedahay nimankii waxaan dusha u saarinay waxaysan muddooyinkan ka soo kabanay marka maxay isticmaashay Iran duqaymihii ay xalay ilaa saaka Israa'iil saldhigyo iyo goobo muhiima ku baabi'isay maxay u adeegsatay gantaalaha noocee haddaba waan idin tusinayaa wararkii ugu dambeeyay Iran waxay tiri waxaynu isticmaalnay 3 nooc oo ka mid ah sawaariiqdeena oo weerarkaasi aanu ku fulinay wakaaladda wararka ee la yiraahdo Faris ee Iran laga leeyahay ayaa sheegtay in Iran ay isticmaashay 3 nooc oo ka mid ah sawaariiqdeeda kuwaasoo lagu magacaabo Imaad iyo Qadar iyo Khaybar inay markaa u isticmaashay dagaalkii cuslaa ee xalay isaakay ay isticmaashay Imaad iyo Qadar iyo Khaybar alaabta jugta culus la yiraahdaa inkastoo wali laba kala ay dhiman tahay oo laba cajiib ah dhiman laakiin kuwan laftirkoodu waa kuwa halista badan kuwa ku soo xiga waay wali kuwa halista badan lagu maridin ogow baashu Ameerikaana la sugayaa iyo alaab kale marka kuwan intaas ay isaga filanba marka heerkaasa marka la isla gaaray nimankii saasaan u garaacnay yiraahdeen 3 gantaalna noocyadooda kala duwan anagu waxay yiraahdeen inaan baqayno noo malayaan ogow inaan Mareykanka baqayno ay noo malayaan haddii Lubnaan ay iska weerarto waa laga aamusayaa Lubnaan ay iska weeraray waa lagaaga aamusayaa heshiiskay ku jirtay xabad joojinta in Lubnaan xabadda laga joojiyo waa diiday Soomaa intaasaan dul qaadanayna wax ka qabanaa male xooga wax uga qabanayna mar kale waa kaasi Beirut ku laabtay haddaan dhulka idin la jarin
warkooda marka waa cad yahay nimanka Iiraaniyiinta marka Iiraan hadda waray soo saartay marka intaanan barnaamijka soo gelin koor war degdega ayay soo saareen hadaba marka warkan aan aragno waa warkii ugu dambeeyay Iiraan si rasmi ah u soo saartay Al Jazeera waxay leedahay Iiraan waxay ku dhawaaqday inay joojisay hawlgalladii xafiiska Khatimul Anbiya waxa uu sheegay hawlgalladii militariga inay hadda Iiraan dhankeeda joojisay laakiin haddii ay sii socdaan gardarrada lagu qaadayo Lubnaan gaar ahaan koonfurta Lubnaan in ay midani noqon doonto iqarso haddii hadda waa joojineen cadaadis badan ay yimid adduunkii oo dhan wuxuu yiri xabadda hal la joojiyo waa joojin nimanka si fiican ay joogto uga gelinay waa joojinay laakiin haddii ay ku noqoto Israa'iil Lubnaan mar kale haddii wixii ka dhacwaa waa la yaabaydeen way ka adkaan doontaa sida hadda aan u garaacnay marka wararkaas waxay ahaayeen marka kuwii ka soo baxay dhanka Iiraan warkeedii meeshay wax mariyeen gantaalahay isticmaaleen ilaa hadda oo ay joojiyeen hawlgalladii ayaanu soo aragnay Israa'iil ayaduna dhankeedaan galaynaa haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay warar laga helay dhanka Israa'iiliyiinta waxay sheegayaan in weerarada Iiraan lagu qaaday ay markaa Israa'iil kaliya ay ahayd laakiin warbaahinta Israa'iil waxay xaqiijiyeen in Washington ay ka qayb qaadatay difaacidda gantaalihii Iiraan ay soo ridaysay inay markaa Washington ay ka qayb qaadatay oo laakiin dagaalka tooska ah iyadoo aanay gelin oo aanay ka qayb qaadanin mawjida waxay yiraahdeen dhowr meelood oo muhiim ah duqaynay Tahran iyo Asfahan iyo magaalooyin kale goobaha aan duqaynay waxay ahaayeen dhamaantood meelo militarigu isticmaalayay waxay ahaayeen meelo gantaalaha hawada lagula dagaalamo ay yaaleen iyo gantaalaha kale ee weerarka marka annagu meelahaas si wanaagsan aan u duqaynay haye waxaan isticmaalnay leeyniyeeguna gantaalaha plastiga ayaan halkaa ku isticmaalnay intaas markay joogto marka waxay yiraahdeen Mareykanka dagaalkana lama gelin laakiin Mareykanka wuu difaacay macnaha asagu dagaalka ma gelin laakiin gantaalka Iiraan soo ridana wuu difaacay macnaheedu maxay dagaal ma gelin iyo dagaalka waa ku jira maxay tahay teamka hadii kubadda la ciyaarayo garoonka la galo ninna waa gool dhaliye waa weerar ninna waa difaac isku team isku koox isku ujeedo way marka kulaha Mareykan waa difaac waana difaacaya dagaalka kuma jiro oo muxuu difaacaya duusa dagaalka ku jirin waa sheekay yaable marka hadda iyaguna waray soo saareen marka Iiraan soo hadda war ma soo saarin ayaguna hadda waray soo saareen marka aan idin tuso Israa'iil marka waxay leedahay warkii ugu dambeeyay wargeyska la yiraahdo Israa'iil Huyum wuxuu leeyahay isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ah ma jiri doono wax weerar dheeraad ah oo markaa Iiraan lagu qaado haddaanay Iiraan iyadu soo ridin gantaalo cusub ama weerar cusub aysan soo qaadin waaye marka maxay leeyihiin annagu weerar dambe ma qaadayno sida Iiraan baa ay lahayd laakiin Iiraan hadday weerar kala soo qaado waa tagayna maartay annaguna waa ku laabanayna laakiin mushkiladda marka meesha ka jirta waxay tahay warbaahinta Israa'iil sidoo kale waxay soo xiganayaan saraakiil Israa'iiliyiin oo uu ku jiro abaanduulaha ciidanka waxay leeyihiin annagu mana lagu cabsiin karo Lubnaan haddaa weerartaan waa la soo weerara Lubnaan xilliga rabnaa weerarayna Iiraan waxa leedahay carwa kaas weerarada marka meeshaasu xaalka halkaas marka waxa leeyahay wuu ka qasan yahay oo maartay xaalad aad u qasan ayaa halka ka jirta marka Mareykanka ayaan galaynaa marka Iiraan waa soo aragnay Israa'iil waa soo aragnay meesha ay hadda wax kala marayaan ay joogaan Mareykanow adiga sidee xaalkaagu yahay difaac ma ahanaysa difaaci ma ku jiraysa
markaan idin tuso wargeyska la yiraahdo Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa laga soo xigtay warbixin uu leeyahay Washington ma ogolaanin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday Iran haddaba dhanka kale waxa la sheegayaa inaysan Washington marnaba aqbalin in weerar lagu qaado Iran Netanyahu waa la gaarsiiyay laakiin Netanyahu waxa la sheegay in uu markaa diiday dalabkii Trump ee ahaa inaanu ka jawaabin weeraradii Iran ay markaa ku soo qaaday waxay leeyihiin annagu maartay wax fasaxa ma bixin in Israa'iil weerarto Iran bal wuu diiday Trump Netanyahu si wuu diiday Trump ha weerarno yiri Netanyahu wuxuu ornaad waa weerarayay warkaas beeshaasay marka warkayga waa diiday anigana ma fasaxin laakiin waa difaacaya adi meel u dhig ninka warkaaga haduu diiday waxaan ha sameynaa tiri uu sameeyo dema ku difaacayna tira Soomaaliya sida xaqiiqada laakiin waxa soo dhan uu sameeyay Soomaaliya haddana Iran markay gantaal soo rido difaacan ka qayb gala gantaalayga difaaca ayaan Iran ka horgeynaa marka waxa soo dhan waxay leeyihiin waa ruwaayad labadoodu way soo geeyeen wax kasta meeshan yaa wax kasta la idin sheegay adduunka yaa la sirin ani kuma jiro yani waa ku jira inaan ku jiro soo wax u difaaca waa sax ma ogtahay marka arintaas adikuna marka ay kala gaareen joojiya dagaalka joojiyadiisu marka xisaab ma ba ku jirtaba Iran waxay tiri anagu waa joojinay laakiin Israa'iil haday ku laabato Lebanon waa ku laabanayna hawshan Israa'iil waxay tiri waa joojinay laakiin cid naga hor istaagi karta ma Lebanon inaad duqeyno marka ma jug meeshaadi jooga laha xilli kastay marka qarxi karta waxayna ku xiran tahay Israa'iil oo weerarta halkan Lebanon weerarta marka sheekadu halkaas maraysaa marka ilaa maantay maxaa socda hawadii wali waa joojinay dagaalka laakiin hawadii dawladaha dhan way xirmatay oo dagaalka ku lugta leh dawlado kalena waxay diyaarada ahaa dul maraya haddaan idin tuso sawirka hadda Al Jazeera ka soo qaaday oo hawada dusheeda diyaaradihii rakaabka ahaasay u noqdeen wayaabsa haddaba markaan idin tuso warbixin kooban oo laga diyaariyay sheekadan haddaba khariidada dhanka hawada duulimaadyada muujinaysa waxay sheegtay in xaalad ay aad u duwan tahay haddaba dhanka waxaa la sheegay Suuriya iyo Ciraaq iyo Iran hawadooda ilaanay jirin wax diyaarada oo dul maraya marka dhanka kale la fiiriyo wixii diyaarada ahaa oo dhan waxay isugu tageen hawada Masar iyo Sacuudiga ayay waxay u buux dhaafiyeen si aan hore loo arag wixii diyaarada oo halka ka soo cararay oo dhan halkaas ay soo marayaan dhanka kale Tel Aviv iyaduna wax dul maraya mala ilaa Tahran dhulkaas oo dhan marka halkaas marka iyaduna xaajadu maraysa marka ma arkaysa khasaaraha marka halkaas uu jooga kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii labaad maanta waa maalinimo Isniin qaybihii ugu dambeeyay marina haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa dawlado waaweyn ayaa ugu baaqay Iran iyo Israa'iil inay joojiyaan dagaalka oo xaaladda ay dejiyaan ra'iisul wasaaraha Britain madaxweynaha Faransiiska iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa iyagu markaa waxay ugu baaqeen dhinacyada inay dagaalka joojiyaan haddaba dhanka kale ma jiro Iran weerar ay ku qaaday dhanka dawladaha khaliijka wax weerar kuma qaadin sababtu marka maxay tahay Mareykanka ma weerarin Mareykanka meesha degan laakiin Israa'iil iyo Iran hadda hawsha ka dhaxaysa dhanka kale Xuutiga iyaguna gantaalo ayay ku weerareen Israa'iil laakiin Israa'iil waxay sheegtay laba kamida inay ahaayeen gantaalo halis badan mid ay qabteen mid ka kalena ay qaban waayeen xaguu aad marka waa xarooday meel u jira laba yaqaano kaas waa adeegtay marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa wararkii soo kordhay haddii alla idmo wixii kale warara ku soo kordha xaaladan barnaamijyadeeda dambe ayaan idin kula socodsiinayaa like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan idin leeyahay sidaas iyo